xildhibaanada sharafta leh ee aqalka sare xildhibaanada golaha shacabka mas'uuliyiinta kale ee dawladda diblomaasiyiinta ka socda dalalka aan saaxiibka nahay ee Turki iyo Qatar wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo marti sharafta kale iyo bahda saxaafadda dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn waxaan idin soo gudbinayaa golaha sare ee aqalka sharafta leh golayaasha sharci dejinta mid ka mid ah labadaba kii ugu mudnaa labaduba waa inoo mudan yihiin salaan aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo rabay jeclaana inuu idinkala soo qayb galo si rasmi ahna inoogu furo kalfadhiga afraad ee aqalka sare ee golaha baarlamaanka laakiin sida aad ka warqabtaan hawl qaran oo muhiim ah oo ka mid ah fidinta amniga iyo dib u xoreynta goobaha ay cadawgu gacanteenagaga hayeen qaar ka mid ah ku hawlanaa xalayna ku hoyday shaqadaana gacanta ku haya uu ku dadaalay inuu idin yimaado laakiin salaan diiran ayuu idin soo gudbiyay aad baan u jeclaa inuu xafladan maanta furo waa sayidin la joogaa mar walba qayb qarankeena ka mid ahna waa ku sugan yahay hadda sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu u boqolay gobolka Jowhar oo uu isagana shaqo qaran ka soo qabanayo taasna waxay tusaysaa in maamul wanaagi fidayo in dalkeeni dib u soo kabanayo in amnigi fidayo in isxukunku fidayo inaynu qaran ahaan dib isu taagayno taasoo ay suurto gelisay gacanta aynu hal iyo jeer iyo taageerada aad la barbaar taagan tihiin madaxweynaheena iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya waa mahadsantihiin mudanayaal waxaan leeyahay doorka aad ku leedihiin waa door milka ah oo shariif ah aanuna idinku hambalyeynayno mar walba aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa guri muhiimna u ah dhamaystirka baarlamaanka iyo sharci dejinta maadaama aynu nahay dal ku dhaqma nidaamka baarlamaaniga waa golihii sharci dejinta ee labaad waa golo siyaasadeed waa golaha duqeyda Soomaaliyeed isugu tageen waa golaha wakiilada ee maamul goboleedyada waa golaha nabadda iyo sulxa waa astaantii midnimada wadajirka iyo gobonnimadu waa geed ku baxa dhiigga geesiga waa gumaro aadmigu hantiyo waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn gobonnimadii aynu u soo halganay 60kii mar walbana u taagnayn dhiigga badan ee nagaga baxay maantana u halgankeedii iyo u yegleelkeedii ay inoo wada taalo maadaama aynu la kowsanay la jihaadka iyo la dagaalanka cadow caalami ah oo dunida oo dhan shida ku haya aanay ka seexan karahaynin Washington aanay ka seexan karahaynin Beijing aanay ka seexan karahaynin London aanay ka seexan karahaynin Cape Town aanay ka seexan karahaynin Cairo cadowga caalamiga ah ee barriinsaday dalkeena la dagaalankiisu cid gaar ah uma yaalo wuxuu u yaalaa dhamaantii qof kasta oo Soomaaliyeed muwaadin kasta oo isxilqaan iyo mas'uuliyad qarannimo saaran tahay muwaadin kasta oo xumaha ka dhiidhiyaya ma aha wax si gaar ah madaxweyne farmaajo ugu yaala ma aha wax ra'iisul wasaaraha u yaala ma aha wax xukuumadda u yaala waa wadar waa fardul cayn waajib inagu ah in aynu dhiigeena badbaadino in aynu sharafka iyo karaamada qofka Soomaaliyeed badbaadino in aynu cirdiga shariicada islaamku ku baaqayso ee nabadda iyo shanta maqaasidu shariica aynu wada badbaadino waa waajib nasaaran weeye cid gaar ah wax lagu dhaliilay ma aha sidee baynu gacmooda jir iyo hawl bay wax ku gooyaan isu taagnaa qaran ahaan gacmaha isqabsanaa karaamadii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed dunida ku lahayd wada jir inakoo ah aynu dib ugu soo celinaa oo waliba duqeyduna hormuud inoogu tahay mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin tan iyo intii la doortay madaxweynaheena oo aydan idinku codka kalsoonida ah siiseen oo uu soo dhisay soo magacaabay ra'iisul wasaaraha oo xukuumadda soo dhisay waxa halbeeg noo ahaa 5 shay oo waaweyn oo ay ka tahay in amniga dib loo yegleelo xasilinta caasimadda iyo fidinta amniga oo aynu maanta arkayno midhaheedii inay fideen aynu arkayno la dagaalanka aynu kula jirno nabadiidka shalayna aynu u dabaalday xusaynay dhacdo fool xun oo xanuun badan oo 14 Oktoobar sanad guuradeedii shalay aynu wada goobjoog u ahayn
inaanay dhacdadaasi dhicin waxaynu leenahay maya mar labaad ma dhici karto maya waanu ka soo horjeednaa maya waanu ka dhiidhiyeynaa sidee baynu se taa ku gaari karnaa waa inaynu gacmaha isqabsannaa waa inaynu wadajir ku shaqaynaa kaalinta waayeel iyo haween iyo dhallinyaro iyo carruur iyo ciroole qof walba waajibka ah ee islaamnimo ee soomaalinimo ee ina wada saaranna aynu u gudanaa taasi waa xil inoo yaala wejiga labaad oo aynu ka shaqaynayno waxa weeye dib u habaynta dhaqaalaha oo aynu markhaati ka tihiin in horumar iyo guulo waaweyn aynu dhaqaalaha ka gaarnay sumcaddaannu caalamka ku lahaydna dib u soo celinno shalay oo ugu dambaysayna 100 milyuun oo euro oo si toosa dawladda Soomaaliya si loo soo marin doono ra'iisul wasaaruhu qalinka ku duugay waa halganka aynu ugu jirno inaynu niraahno maya ma nihin waxa dadka qaarkii naga qabaan ee la leeyahay Soomaaliya waana perception yacnihi waa ra'yi la inaga qabo waa wadamada ugu musuqa badan aanu leenahay maya system baanu dejinay waa shaqaynaynaa dad haybad iyo karaamo leh baanu nahay ahaan jirnay weligayana Soomaalinimaduna ahay taa xaqiijinteedu maalinta ka dambaysa waa ay soo kordhaysaa waana ay soo daba kabanaysaa waxayna u baahan tahay inaan ka wada shaqayno fursadna siino madaxweynaheena ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inaynu wada guuleysano dhammaanteed taasa waxay noogu jiraan qof walba wixii umusha u dana ayay Soomaalidu tiraahdaa ayaa ilmaha u dana qaybta labaad saddexaad waxay ahayd siyaasadda loo dhan yahay oo ah dib u habaynta dastuurka doorashooyinka hal qof iyo hal cod oo aynu sanadka 2020 si nabad ah ku gaarnay iyo guul ilaahaydinkiisa iyo shuruucda kale ee jideyn kara in 2020 doorasho la qabto kana wada shaqeyno maxaynu ummadda Soomaaliyeed 2020 la wada hortageynaa muxuu qabtay golaha sare ee sharci dejintu muxuu qabtay golaha shacabka Soomaaliyeed muxuu qabtay xukuumadda muxuu qabtay madaxweynuhu waa waajib in wada saaran oo isla xisaabtankeeda la inaga wada sugayo 2020 sida aynu guusha ku gaari karnaana waa mar labaad inaynu wada shaqeynaa wada jirno halbeegyadana aynu si wada jir ah u iibsano arrimaha bulshada wax weyn baan ka dhaqaajinay iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo isdhexgalka geeskan Afrika oo maanta aynu wada ogtihiin madaxweynuhu inuu hormuud ku ahaa isu soo dhaweynta wadamada Djibouti iyo Eritrea iyo heshiiskii Eritrea iyo Ethiopia oo aynu qayb weyn ka ahay taasina waxay tusaysaa in Soomaaliya kaalintii ku lahaan jirtay dunida ay mar labaad haddana ku soo noqonayso kuna leedahay waxaa hadda inoo dhamaaday 2 sanadood oo aynu aaminsanahay wax fara badan inoo wada qabsoomeen inagoo wada jirna waxay taaganahay inaan isweydiino sidee baynu ku gaari karnaa 2020 guusha inaynu adkayno oo aan sii yagleelno oo aanu sii midayno hawaankii Soomaaliyeed saaxiib qamaan wuxuu yiri rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaan naho tolimo meerta noo tahay masalaha ninkaan ii dhigay midigta waan saari ninkii aniga iga maarmi kara waanu muraad yeelan waa halbeega iyo hagida madaxweyne Farmaajo uu rabo qarankan inuu dib ugu soo yagleelo golayaasha sharci dejinta haddaan nahay maamul goboleedada haddaan nahay xukuumadda haddaan nahay dhammaanteenba haddaan nahay dad nool oo jira oo wada jira aqalka sare aniga ra'yiga waxaan qabaa aaminsanahay waa golo sharci dejineed oo duqeydeenii Soomaaliyeed ku ururtay oo ay tahay mar walbana sulxa iyo nabadda iyo wanaaga iyo dib-u-yegleelidda qarankan inuu kaalin weyn oo hormuuda oo xasaasiya ka qaato awaankii hadda shirabay wuxuu yiri Soomaaliya inay diriirsan tahay walina daawoobin ee dib u heshiisiin la rabo dawladda u sheega dawladda awaanada Soomaaliyeed lahaayeen ha loo sheego ma aha madaxweyne Farmaajo manaha xukuumadda ee dawladdu waa dhamaanteen soo maaha marka waxay lahaayeen u sheega aqalka sare waxay lahaayeen u sheega golaha shacabka waxay lahaayeen u sheega xukuumadda sidee baynu wada jirkaas iyo dawladnimada aynu ugu gaadhnaa inaynu dib u yagleelno qaranka anugu markaa dastuurkiina dib baa loo habaynayaa door weynna waa ku yeelan doontaan haddaa aqalka sare tihiin dib u habaynta dastuurka iyo kaalinta qaranka ku leediin oo shariif ah imakaba sidaan mar walba aaminsanahay una tahay ujeedadeenu sidee baynu isugu soo wada dhaweynaa isugu dhawaanaa kaalintaanu halka marayna uga sii wada shaqaynaa waan idin hambalyeenayaa aqalka sare haddaa tihiin kalfadhiga afraad golaha sharci dejinta aqalka sare waxaan leeyahay hambalyo ha guuleysto shuruuc dhowr ah baa aan soo gudbinay 29 ah qaarkood golaha shacabka wali hor yaalaan mid kamid ah idinka ansixisaan oo idinka soo dhamaaday midhihii ka dhashayna iyo in dawladnimada wax ku daranay sharciga isgaarsiintu ay durba hirgashay iyo shuruuc kale oo hadda qaarkood aqalka sare yaalaan
kuwana golaha shacabka yaalaan waxaan aaminsanahay inaad nagala wada shaqayn doontaan kaalinta kulleediina ka qaadan doontaan isla xisaabtan iyo dabagal iyo in waajibka xukuumaddu lagu leeyahay ay gudatayna mar walba aanu diyaar u nahay waad mahadsantihiin duqeydeennii haddaad tihiin hambalyo kalbadhi afraad oo nabad ku dhammaadan nabadna ku bilaabmay ilaahay idamkiisa guul inoogu dhammaado ayaan inoo wada rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu